البيت وحي كحيجة أنت دبنش قضين عصب لو سمينا يو إن واحد اسمه كدعك أنو تشين يضوها ولا جود يدولة هوسة أي سمينا يان إن دبنش قضيان وحنا ددوينها وأكون دبعت بدن وجهتا لكن سمك الله قاطع أنت أصير خسانون دمين دون إن شاء الله تعالى قافني يدا اللف له ولا هجاتنا يا هذي وحكي قالوا عينه واسكوب بيجينا تانا دد بكعبني مركا سيدا وهبون وأنه يدنا أصحنا مركا ددوينها الدجن أجا دجمة كودبور الدولة هوسة وحنو جيسيننا إن سيدا الله السودان واحد ضمبو لقى أورنا يوه قبيه هنا متشران أنت ساينا وقدم بيسا أنت أنا جاي الدولة هوسة سيدا وقول أخسها بدن بأنه يدين فلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابت الدوان أيام باغضي وحنا جرى dad badan oo si markeeda horeba uga cabanayay baaxadda dhulku ku fadhiyo haddana dabcan weydii kan hareerihii xanibaad saaray marka dadkii cabanayayna waxay leeyihiin dawladdu namay dhageysan wasiir dad badan waxay leeyahay sida aad wax u wadaan bal arinta ka war cabasho way iman kartaa waxayna ku iman kartaa horta dawlad meel walba oo amri baa jooga dhulkana dawladda mas'uulka haddana iyadoo saas jirto dadweynaha wixii dhulka ay sheegtaan dawladdu wuxuun bay u qorshaysaa wixii dan guudana waa ka goysaa waxayna u egtahay dadweynuhu inay dawladda xukumaan marka dhibaato aanu geysano oo xukuumaddu geysataa way yar tahay waayo haddii la isticmaalayo xaqiiqda waxay ahayd inaan dadba dhul sheegan ninku meel uu falay ceel ka qotay guri ka dhistay wax kala ka samaystay inuu sheegtay ahayd laakiin imika waa la ragteen dadkii dhulkii iyaga leh oo ilaahay ba uga sokeeya oo la annaga leh haddana dawladdu kuma faragelisay wixii ay ka dan guud loo gooyn karo baa looga gooyaa dhul aan beer ahayn oo ceel ahayn oo dhismo ahayn oo ay ah baa dadkii leeyihiin annaga leh madaxtooyada lafteedu ay bay ahayd haddana waxaa jirta oo markii dhawadna aan ka booday dadka dhulka sheeganayay ilaahay ka sokow sheeganayay ee dawladda ka sokow sheeganayay madaxtooyada uu ka galay dhulkaasi maanaan dadafayn waan ka booday markii dhawayto wixii uu ka galay dhul in faylashoodina waa yaalaan dawladda hoosena waa og tahay annana waa ognahay dhul bedel inaanu u samayno oo waxoodii u dhammaystirno yaanu u ballan qaadaynaa wixii loo celinayo xaqiiqa loo cesho dadkana jirabaad kale iyo si kale midna looma geysto waxay ahayd meesha madaxtooyada laga dhisayaa madaxtooyaduna